كان waxaan kala hambalyeynaya gudoomiyaha iyo guddiga cusub oo la hambalyo waxaan ilaahay uga barayaa inuu xilkooda iyo hawl badan baa runtii horta Allah oo inay kobciyaan oo dhisaan oo hogaamiyaan laanta iyo laabaha kale dalka Sweden xisbigu ku korayaa oo markasta ama gudaha jooga ama dibadda jooga waa taageerayaashiisa oo bata marka laanta xilkeeda ugu weyn waxa weeye inay kordhiyaan dhalinyarada inay kordhiyaan haweenka inay kordhiyaan xisbiga taageerayaashiisa inay la shaqeeyaan laamaha kale ee dalalka kale inay la shaqeeyaan xarunta xisbiga marka waxaan idin rajaynaynaa inaad ku guulaysataan arrimahaas runtii waxaa iyaduna xusid mudan inaynu joogno hoolkii lagu aasaasay laanta aynu maantana ku qabanayno shirweynaheedii waxaan ku talinayaa uun in axsaabta gudaha iyo dibadda iyo caalamka inta badanba taageerayaashiisu dhalinyaro u badan yihiin halkan ragga joogaana ma odayaal kuma jiraan baan u malaynayaa in la wado inay dhammaantiin dhalinyaro tihiin baan filayaa iyo habluhuba markaa guud ahaan dhismihii xisbigu u socdaa gudaha iyo dibaddaba markaas waxaan rajaynayaa uun in waxaynu waddankii doorashadii way soo dhawaanaysaa waxaana doorashada ka hor waajib in la sameeyo diiwaangelintii axsaabtu way ka wada hadleen iyo guddiga doorashooyinku iyo wasaaradda arrimaha guddoomintuba waxay u soo bandhigeen deeq-bixiyayaasha in arrintan ay laga taageero waxay maraysaa maanta meel fiican oo ah in deeq-bixiyayaashuna ay aqbaleen in arrintaa la bilaabo xukuumadduna ay ku darto miisaaniyadda qaranka iyo wixii kale looga baahdo waxaa ugu dambeeyey waraaq laga sugayey madaxweynaha oo isna intii aan soo maqnaa inay commitment ama dawladdu inay diyaar u tahay doorashada markaa waxaan rajaynaynaa in diiwaangelintii la bilaabo sanadkan soo socda bilowgiisa waxaa laga yaabaa inay muddo kooban socoto oo December soo socoto ka horna dhammaato campaignkii waxaas laagu raagayaa laakiin qolada kulmiye ama xukuumadda kulmiye waxaad moodaa inay campainkii hore u bilowday dee marka haddii baalkii la bilaabay mala inagana fadhiinooma yaalla sida laamaha dibadda hadday qaadhaan tahay iyo hadday subscription tahay iyo hadday rag yimaada iyo habla yimaado tahay iyo hadday goobo telefoon tahayba waxaa loo baahan yahay dardargelinta xisbiga inaan ka qayb qaadano dhammaanteen waxaan rajaynaynaa doorashada waqtigeeda ku dhacdo 2015 tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhuba markaa inaynu diyaar garowno ayaynu u baahan nahay hawshaas waxaan rajaynaynaa in doorashooyinkaasi sidii awalba ahaan jirtay haddii aan cid kale haddii faqralo la wadin inay nabadgelyo ku dhacaan baan rajaynaynaa Somaliland maanta uma baahnaa runtii in xaalad abuur iyo xamaasad badan la sameeyo uma baahna dadka in la bahalageliyo oo daasado maran loo tumo Somaliland waxay u baahan tahay inay haru socoto inay nidaamka dimuqraadiga ku socoto inay nidaamka doorashooyinka ku dhawaato ay u diyaar garowdo laakiin waxaad moodaa kulmiye in waddo taa ka duwan hadda u qaaday
waxaa ka warhaysaan intii aan soo maqnaa markii aan soo baxayay waxaa la sameeyey isku shaandhayn guddiyada golaha wakiilada sida xeerka hoosaadku qorayo guddi hoosaadyada waa in sanad kasta la sameeyaa way ahayd marka guddi hoosaad isku shaandhayntiisu soo raagtay oo muddo badan la sugayey oo goloweynuhu ka hadlay oo guddi gaaran u sameynay ka hadlay oo shirguddoonku saddexda xubnoodba isla qaateen in la sameeyo isku shaandhayn ayaa la sameeyey isku shaandhayntaas waxay waafaqsan tahay sharciga hase yeeshee waxaad ka warqabteen in muddadii aan soo maqnaa isku shaandhayntaas go-aan aan golo u lahayn oo dibadda kaga yimi la isku dayayo in lagu bedelo go-aankaasi go-aan sharciyu ahaa xaguu ka yimi go-aankaasi meel fog kamuu iman meel aan naga fog inaanu jaar nahay buu ka yimi faragelintaasi waxay ka timi meel aan naga fogeyn aanu jaar nahay hooyooyinka waxay ku maamaahi jireen baa layidhi markay carruurtu iska layso xaafad waxay ugu soo wareegtaa waxaad moodaa qolooyinkaanu jaarka ahayd waxaa ku soo kordhay carruur badan oo qalqaali ah waxaa ka baqaya qolos leh madaxa xukuumadda daafaca iyo carruurta qalqaaliyiintii inay jar ka tuuraan ma uga baqaya runtii waxaanu leenahay bele ma jirto annagu aniga iyo xisbiga waddani midna looga baqan maayo wax dhibaataa inay waddanka u keenaan laakiin inamadaa faraha taagtaagaya ee faraha fiiqfiiqaya waxaanu ku leenahay bele ma jirto farihiina ha fiiqfiiqina iska daayaan leeda haddaad joojin weydaa fiiqfiiqa waxaan filaya inay dhexda ka qaniini doontaan farihiina hadalkeyntiisa dambe hargeysaan u dhigan doona haddii ilaahay ka dhigo aada iyo aad baa mahadsantihiin guul baa inoo rajeynaya dhammaanteen waddankiina wax dhibaatay ma jiraan inamadaasina waxay la tahay intaasi inay ku filan tahay hadday in ka badan u baahan yihiinna iyagaa sheegi doona